koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hergala bariida salaamahayne haye haddaadanna salaamaynin xaad noogu soo hergele meha maska fadhi karaa adablaaga hoosey ogolaajimaaytey walhuma sheegne hadhowaaw jawaab ma hayne mugaad leedihiin jawaab ma hayno maanigaa waxun idinka sheegay hee hoy heeskaa usulmadoodla maxaa ugu quseeya kisaayinbe war walweynay ma heesihii suudaan taama bilowdeen aroo beerihii sunta lagu daaweynahay waa u waysagnahay gooyow adana beermaykoo gali gerger sagaarta ama isku geedato waryaada ayaxaa la sheegay xagoo soo maraya aryaadaha ayax tagaa layidhi eelna reebe ayaxaan gobollada dhexe laga sheegaayo koronkorrada u ka tegi doonaan ka sii naxsanahay wareedhe hergelaa bariida aan ku xasuustaye diisoor meeshii xasan aadan ka yimid dagaal culusaa ka dhacaa layidhi iyaa aroo meeqa kiilaas ahayne war ma dagaalaad miisaami jirtay adiga warwarkaan naga dhex gelinina dhegaysta weli soomaalida dhamacii kursi ku dagaalanka kama aysan dawoobin hadda guddoomiyihii degmada diinsoor oo xilkii laga qaaday wuxuu yidhi ka degi maayo kursiga waana sharci darro warka la sheegaya eebbaagoo ilmaan arka adoogoor waa tahayaan maqli jira guddoomiyaalisan sheegasan kuron hoblan haay kursiga mayla gadiyo maylan tutuga war maanta kursigii lala gadiyo magaaladii dhameedba laga saaray hadda geed qurxo magaalada ka fog uu gudoomiye ka sheeganaya wali aroo shib iga dhaca kursigal hamuuntiisa anay igu raagdi laakiin maantaan ka baxaye aryaadaha waxaa hore loo yidhi geerida galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri maalin dhoweed maday isaaq markii guddoomiyihii baarlamaanka puntland beledka ka baxay ee asagoo geed hoos fadhiya yidhi weli guddoomiyihii baarlamaanku aniga waaye maday isaaq waadiga dhahaye adigaba oo iida kaale markii la caroodaba duur kale maa loo ordaa maxay xoolo duurka nooga shabinayiin geedahaba wehelay rabaan wanimayaw soomaalida kursigaasaan cashaqaaye weli kama duqoomin miya war hadday ka darantaho bugii geeska afrika uu ka muuqdaa war geeska afrika gaar ahaan hargeysa bannaanbixii xisbiga waddani ku baaqay waa ka dhacay maanta war muqdisho hadda ka haraba banaanbixii xilwaafiqii ku baaqay waa baaqday war shiikh la yidhaahda maxamed qudus oo hargeysa kitaab ka akhriya wuxuu yidhi xalay casharkii fiqigu berri waa noo fasax ee ardadu ha ismuujiyeen bannaanbaxa uu guddoomiye cirra ku dhawaaqa awgiis war anugu fiqi idinma sheeginana dhegaysta dad marnaatiini xalay markuu bannaanbaxa ugu baaqay guddoomiye cirra taageerayaashiisa xukuumaddu waxay ciidan badan ku wareejisay xaruntii xisbiga saakana sidii ballanku ahaa guddoomiye cirroo taageerayaashiisii hor kacaya ciidankii booliiskuna markay arkeen guddoomiyihii iyo madaxdii kaloo la socota ayay dariiqa u banneeyeen macal taageerayaashoodiina xaruntii ku xaroodeen halkaasay ku qabsadeen bannaanbaxoodii marka waxaan ogaaday ciidanka booliiska somalilan inay kuwa soomaaliya ka bisil yihiin war nin weynaa tahaye soomaaliya iyo somalilan halkeed u kala wada waa isku mide ayay laankii isdarihiina ka joog waryaadhahen wallaweynay duqdiinu way isdardartaye hargeysa anaa idinka warramaya dhegaysta taliyihii ciidanka booliska somalilan wuxuu yidhi guddoomiye cabdiraxmaan cirro ciidanka ilaaliya sarkaal bay dhaawaceen ciidankii booliskee meesha la geeyeyna rasaas bay ku fureen war dee warbahay sidii cabdiraxmaan cirro uu hadlay wuxuu yidhi weerarka laygu soo qaaday iyo waxa la geysta waa fal argagixiso war adigaan warhayn cabdiraxmaan cirro wuxuu yidhi maayarka hargeysa dhagxaanta uu xarunta xisbiga keenay muugeeya waddooyinka burbursan ee magaalada war warmahay sidii cabdiraxmaan cabdishakuur meesha uu ka khudbeeyey waa london hargeysa maahan wuxuuna yidhi doorasho qof iyo coda soomaaliya kama dhici kartee ee in dib loo dhigo doorashaday rabtaa dawladdu doorasho inay dhacaynin yaa u soo waxyada uurku baalamiya waryaadhahen wallaweynay somalilan ma taqaaniine doorasho qof iyo codaa ka dhacda wareer kalamaanow qaylaan u wereeriseene xabsiyada hargeysa idin baahan war ma muusaanna wacay maya ciyaantan somalilan waa shidanta war heedhaha somalilan maanta ay aad u kala kacsaneed allaha isku duwo aryaadaha allah u naxariistaa cabdullaahi qarshe hadda ka hor wuxuu yidhi roonow
rabbiyow raxmaanow soomaalida u roono araada dugsilayda markaan ahaa jirna saana u raabdooni jirneede war naga tagnay waalnaa tahay dad daad qaaday roob maxaad u sheegaysaa ilaahay roob alla siiyo aamiin dhaha aamiin dhihi mayno intaan roob uga keenaynaa balada sareeraaran tan hoosanaaradeeban tan horanaaroran tan dambaytanaareeban tan hareeruhuna riixan tan dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeenu ku shubo ragta weligeed ku rushaysan heestaas markaan maqlay waxaan soo xasuustaa madaxweyne cali mahdi maxamed ma heestow la xameeyey ustaasadii cali mahdi aslahaa ciiditii islaha maxay ahayd abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye tii caydid ma hayno maxamed siyaad barre markaan soo xusuusno waxaa igu soo dhacda heesti aheeday sareeda iyo guul barwaaqa loo siman yahay nasaacidaahu nogama horraynsiiyaan markaan maqlo kii ka saari lahaa waa kan nabad weriye waa kan iisuu keene waa kan xasan shiikha igu soo dhacay waraade waxaad ilowdeen heystay madaxweyne farmaajo war xooga wadiniinta u qaadaan sax weeye waay war heystas ma taqaanida waxay ahayd duca qaba farmaajo dib u laaban mayne usadiis duca qabaya inkaaran bacdi dib baa loo noqonayaa waa la noqonayaa horta heestaas yaa loo qaaday war ma haysaane maanta maxkamadda sare waxay dhegaysatay dacwaddii xisbiga himilo qaran meeqa sanaa lagu xukumay hee ay dhegaysatay muxumeeyay ka dhegaysatayne warwarkaan naga dhex gelinina dhegaysta guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa dacwada qaadaya maanta abukaatayaashii xisbiga himilo qaranna mid ka mida dacwadaa laga joojiyo shaqaale dawlad taha layidhi guddoomiyaha maxkamadduna wuxuu sheegay dacwadan inay qaadayaan yaaya abuukaatii haddii la yidhi shaqaale dawlaad tahay guddoomiyaha maxkamadda naftirkiisu shaqaale dawla maahino warwarkaan naga dhex gelinine 5 beriyaa dib loo dhigay dhegaysiga maxkamadda waxaana la yidhi xisbigu qareennadiisa ha soo dhammaystirto 5 beriyaa dib loo dhigay yaa ma laga shuuray rabaa 5 biloodaa dib loo dhigay ICJ ku nacyeegada war dacwadani ashuun ku aadin ma ahayn waxay live ka ahayd TV-ga qaranka waana dowlad siyaasadeed war dacwadaas maxkamadda may balijeeyay markii shariifka airport lankadiidi inoo kismaayanka dhoofa tii dambayta isbeledweynanka dhoofa ilin diiday oo tiyana yaa loo diidi shariifka yaa diidi yaa oghe intee loo diidi kismaayo meehaas wana iga baxay bariid warnimada waxaan ku riyooday guddoomiyaha maxkamadda sare oo nabad iyo nolol inta neerafoose ku noqotay xilka laga dhuftay oo dacwada xisbiga himilo qaran ay noqotay dacwadii ugu dambaysay waxaan u malaynayaa inaad xabsiga ku riyo doonto dhagan u jeedaa nimayahow nabad iyo nolol laga leexdo anigu weligay ma arkin mudici garsoora marka Soomaaliland garsoorkana ma madaxay ka ahaayaan waa go'aynaana ma dhihi hay haayaan now war Soomaaliland idinma joogtee xanta ka daaya nima soo shaqo tagay idinla joogay riyadaasaan ku keenay aniga lafteedu waxaan ku riyooday doorashadii koonfur galbeed inta beesha caalamku neerfoosta ku noqotay lagu celshi waranuguna waxaan ku riyooday axmed madoobe inta cadaadiska nabadii nolol neerfoosta ku noqdo meesha isaga tegey aniguna waxaan ku riyooday kinyo inta cabsi neerfoosta la naqatay badaanya faraha ka qaaday aniguna waxaan ku riyooday shabaab oo dagaalka inta neerfoosta ku noqdo qoryaha daadsi dadkooda dhinac ka raacay waaryaana waxaan ku riyooday Soomaaliya inta Soomaaliland neerfoosta ku noqotay ictiraaftay aniguna waxaan ku riyooday nabadii nolol galmudug neerfoosta ku noqotay oo doorashadii iska daysay madaxweyne u magacawday war ma haysaane Puntland arintii boosaaso ka dhacday way ka heshiiday ciidamadii dadkii caraysnaana nabadoonnadii hogaaminayana talaadiinta ayaan garteen u dhiibanay bay dhaheen boowe awal baanu ogeyn Puntland ma taqaanaane arrimaheeda ayada xallisanaysa boowe dhooba daareed ma ka soo kahayseen quricii hoostiisa baayo deni baa loo dirahayaa boowe dhooba waa xildhibaan waajibkiisa gudanhaya boowe calooli waxay ku bukata laguma daaweeyey deni ninka yaan loo dirin war waxaa doontiinba sheege xaqiiqadu waxay tahay Puntland iyo Somalilandba dhaqana u dambeeya iyo odayaal meel garoorka halaawti koonfurle oo dheh war hadduu salaadiin iyo dhaqan u dambeeyo annagaba wadaata xarfaana iyo qurbajoog xirxiran baa noo dambeeya waran goolkii galmudug waxuu la jir yimid aryadaha ayaamahan generaal bishaar intou cirib iyo jaan dhigay war jenaraal cali gaab meeshii la geeyey waa kala kici jiraya
ayaantan juuqdiisma maqale xaggee aadi jenaraal mukhtaar naftirkiisu se intuu ka baxay amaa saylanti la saara jarnaal saadiq oo hadlaya intaad ku aragtay gurigiisba afka giriga ka saarnaay war jenaraal zakiya waxay tidhi bax ka sii saxaafadda waa leedahay maxaa ciidanka keliya loo sheegaa war korneeshidda wuxuu yidhi bax ka sidii boolis maahide bulshada hallayn oo ha baabi'in sharcigana baro war taliyihii booliska saldhigii hore waa war mahaysiine militari buka sii ahaa dhaawacay war taliyaha magaciisa waxaa la yidhahdaa cali goof joogo meesha lagu dhaawacayna waa dhul isku haysti qaaluu innaa lilaah waa war mahaysiine gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor muuse wuxuu yidhi muqdisho xilligan laba ka aqbali mayno hodan kaaraan iyo wadajiraan guryo xoog ku haystana ka aqbali mayno yaaqshiid iyo hiilawaayo dayniila goofaf ku haynaynaana ka aqbali mayno dhagaxaanta maaha inay yeelin waa aqbalayin maahino war gudoomiyaashii maxkamadda ciidamada liibaan cali yarow iyo shuute gaalkacay suuratulmaa'ida ka bilaabeen car hargeysaha tageen hadda run sheegaya hargeysa garawe iyo laascaanooda ka sokeeya car ma tegi karaan warada somalilan agteeda ma iman kartaan waayo muuse bixi baa sheegay waryaa maxaad nooga daba wadaan maanta oo dhan waxaanaan rabin annaga aryahan golka galmudugow gabagii aawo saaxiibo waa ka soo tegey ewalba intaasaan ku soo koobaya iyo aanan sii badinanqanqanqa ow ahay waryaada kooxda kale makabta kamay u kaadiyaan loo kaadima maxaa loogu kaadinaya war waa loo kaadinaya balaayahaydin baal marte